رقية أو محمد فارح دولة waxaan ku dhashay magaalada Garowe miyigeeda 1900 يحوغا anigu miyigan ku dhashay laakiin aabahay ama reerkaygu waxay ka soo jeedaan walaalaha intooda badni ku dhasheen dalka Itoobiya yaraanimadeydii miyigan ku barbaaray ilaa iyo 8 miyigan ku gaaray si fiican waana waliba aan leeyahay haleyn jiray aabahay hooyadiis waxa la yiri taariikh markuu dhashayba awoogay wuu furay waxa naaska la nuugay wiil habeenka ay wada dhasheen oo dadkii ay wada degi jireen ah diiriyo qoorad buu naaska la nuugay nabadoon buu noqday waa dad ehelona wali isku nagu dheer aanu xiriirino aabahay ilaa 7 jir buu sidaa rajay camal ugu koray miyigii kadibna wuxuu galay xamar isagoo 7 jir wiil yar oo 7 jir ah sidoo xamar ku tag ku keenay laha ma garanayo ka bacdi aabahay halkaas uu muddo joogay inta uu ku gaaray ma garanayo laakiin la mid ah 12 jir 13 jir baan filayaa wuxuu iga sheekeeyay inuu ka ahaa caruurta jidadka ku nool maalintiina makhaayadaha Talyaaniga iyo meelahaas ka soo shaqaysan jiray sheeko cajiib uu ii sheegay wuxuu yiri meesha buurkaroore la yiraahdo xamr waa meel bacaad ah meeshaas ay ku noolaayeen isaga iyo caruur kale wuxuu yiri lacagta aanu soo shaqaysano oo meelaha makhaayadaha iyo haday weelka soo dhaqdhaqaan lacagta ayaanu meesha bacaadka oo ku noolnahay baanu ku aasan jirnay ilaa meel ay dhigtaan male si aan looga furan wuxuu yiri hadhow bacaadka yimaada meeshii waa lacagtu noogu jirtay waa garan weyna markii dambe wuxuu yiri fikrad baa nagu dhalatay godkaanu qodnaa lacagtaan ku ridnaa daasad yaanya laga goostay iyo waxaasaan ku daboolnaa ciid yar baan ku shubnaa waa ku dulkaadinaa waa ka tagnaa hadhow intii bay qodaan meesha qoyan meesha ay ku kaajeen ciidu markay qalasho way isqabsanaysaa wuxuu yiri sidaasaan ku garan jiray marka meesha lacagtii noogu jirto kadib Talyaanigii ayaa halkaas as child soldier ma arka caruur askar ahaan uga qortay oo Itoobiya geeyay sidaas aabahay Itoobiya ku tagay oo dagaalkii labaad Talyaaniga u galay markuu ka baxay oo midda dagaalkii dhamaadayna aabahay wuxuu noqday sheekh caalim ah oo muxafida waaga diinta dhulka kan si fiican uma soo gaarinba oo dadku diinta si fiican uma yaqoon laakiin Itoobiya waa taqaanaa xarunta islaamka iyo taariikhda uu ku leeyahay aabahay halkaas uu muxafid quraan noqday diinta maarta ku bartay ka bacdi jigjiga iyo dagay wuxuu noqday ganacsade waliba contraband Itoobiya waligeed midaan contraband wax lagu soo galin jiray wuxuu nooga sheekeyn jirtay dameero habeenkii isagoo contraband inuu tagwo jaala iyo meelihii u furnaa oo midda dekadaha wax ka soo gali jireen halkaas uu contraband ka keenay jiray dukaan buu ku lahaa halkaasuna hooyaday kula kulmay oo hooyaday Itoobiya ku dhashatay reer jigjiga weey hooyada laakiin waa dadka Soomaalida ah oo dhulka dega aabahay waxa walaalkay Cabdullaahi Deeg leeyahay waadoo iiga sheekeeyay hooyo wuxuu yiri marka aabahay soo doonay yaradkeedii 40 sac 44 walaashay waxa la isaxday 44 maadaama uu san lo lahayn hooyadayna waa beeralay dad degan bay ahaayeen lo iyo leh maadaama uu tukaan lahaa ganacsada ahaa maalin basuuqu tagi jiray hal sac buu soo iibin jiray markuu dhamaystiray 44 baa hooyaday loo meheriyay aba qaaliga ugu kacay kadib dhulkiyaanu yimid safar ku yimid walaalihiis oo ay kala baxay yihiin buu la kulmay waa loo sheego waxa la yiri aabaha xooluhu kaaga dhintay geel dhaxalkaagii baa meesha yaala maxaa dhul shisheeye ku dhigay soo guur aabahay halkaas
aniga oo aan weli dhalan ilaa iyo waxa weeye adigu 70 sano ku dhow laba gabdhood oo kala iga waaweyn baa ku dhashay ilaa 68 sano ka hor ayaa aabahay yimid soo guuray hooyadayna dhulkeedii oo dhan xididada u soo siibay oo walaalaheed ehelkeedii dhulaysan aqoon dabeecad aqoon cid ka aqoon oo garowga tuulaaba aabahay marka soo dajiyay hooyaday waa qoftii ugu horeysay oo canjeelada bartay magaalada oo tuula ah waxay nooga sheekaysay dumarka habeenkii bay dhihi jirtay qasa si u khamiirto subaxdiina kuyuu soo gala aan idin tuso sida loo dubo waayo Itoobiya ka timid ku baratay tuulay waqti ahayd tuulaya oo dhowr qoys ah bay ahayd aabahayna markiiba tukaan buu ilaa waa nin ganacsiga Itoobiya ku soo bartay tukaan buu ka furtay dhowr oday oo la yaqaan kulli magacyadooda la yaqaan tukaan leeydiiba ku beeray hooyaday walaalahay marka Cabdullaahi Deego kale hanba ma xasuusto laakiin dugsiga waa lagu daray markaas Talyaanigii baa furay maan u maleeyo dugsiga hoose dhexe Cabdullaahi sanadka koowaad isagoo ah miyi loo saaray aabahay hooyaday iyo intay dhashaba miyi xoolihii aabihiis uu ka dhaxlay uu ku reereeyay oo dajiyay sidaas marka anigu marka miyiga ugu dhashay laakiin reer kale ayaday baa maartay magaalada deganay tukaan buu furtay cadan buu tagay jiray xoolaha halkaas uu jarka iyo sidii wad garanaysaa odayaal badan cadan buu tagay jiray xoolaha subaga iyo jarka geyn jiray tukaanka soo camiri jiray annaguna hadee magaalada ka warqab baan ahaynoo wali igama harin urkii magaalada markaan tukaanka iyo soo galo oo faynuusti ka shidan tahay iyo miisaankii kiilooyinka iyo rodolka iyo waqiyada iyo wixii la saari jiray ay saameesha ugu horeeya miiska saarayeen cuntada la miiso wali urkii iyo sanuunadii markaanu nimaadno oo markaan yaraa xoolaha intaan soo wax ka soo arooriyo toga keeno toga mijama qarsho qof baa ku imaanaya inta xoolaha la rakaadayo markii hore cabaan waxa lagu dhahayaa gurigii tago soo qadee baasta iyo waxaana miyiga ku cuni jirin haddii naloo keena miyiga baastada iyo timirtii sonkorta baasta cad bay ahayd hooyaday sonkor iyo subag noogu diri jirtay laakiin midda sanuunada leh guriga markaan imaado garow markaan imaado xoolaha waxa ka soo arooriyaba wali igama harin hortii iyo sanuunadii haddaba miyiga seebaad ku timid weeye haddaad ku dhalatay oo garow ku timid iskuul ku gashay abaartii daba dheer baan anigu magaalo soo galay markii abaartaas xumay dhacday wax walba sabab bay u dhacaan waxa laga yaabaa hadda abaartaas haddaysan dhicin maanta miyi ku reeroobi lahaa oo ku noolaan lahaa laakiin abaartaas markay dhacday baa reerad soo guuray dad halka meeshaas buuraha ay xagga garowga toga dhinaciisa asaa la dajiyay dadkii miyiga ka soo xirooday oo gargaarka loo bixiyay waxay ahayd waqtigii 1974 oo ruushku maaragtay inta la qaatay shuuciyada cuntada iyo gargaar weyn maaragtay ruushka iyo laga helay wadamadii shuuciga reer adeerkay baa laygu soo daray caruurtooda iyo xaasas wali islaantii laygu soo daray adeerka Yaasiin Cadde waa nooshahay halkaas markaan maalin joogo mise labo waan garanayaa bariis cad iyo wax maaragtay sidii caday lagu daray waxbaana la siiyay baa walaashay iyo hooyadayba ka soo horeysay mar horeba miyiga ka soo xirootay markiiba waa la iigu yimi waa la iga soo kaxay habeen iyo maalin baan u hoydaan u malaynay kadibna magaalada markay gurigayagii aabahay lay keenay iyo aayaday habeen iyo wax yar oo kale aan u hoyday markiiba aniga hooyaday baabuurta ina tareega ahaa oo raashinka lagu guri jiray baan dushiis fuulno xamaraan yaan ugu socnaa walaalkay Cabdullaahi Deeg ayaa markaa xamar jooga ka shaqeeya oo meel baar inaan isaga wacay ahayd magaciisa iyo weydiyo baar meel koryeeriyaashu ka baxaan oo dawladdu kofeega laga cabo oo cadaan kofeega laga siiyo ka shaqeeyayo ka yahay xisaabiye halkaas aan ugu tagnay dibna ma soo celin wuxuu yahay halkaas wax barasho ka galisaan
halkaasaan waxbarashada oo waliba waxaan waxbarashada birimo ka galay waxay ahayd markii hada wadaaga ugu sarreysay ugu xawliga badnaa macnaha iskuulaadka waxa lagu dhisi jiray tabaruc raashinka waxa loo geli jiray reer walba habeenkii inta loo yimaado baa la qori jiray inta qof ay yihiin kaar baa loo sameyn jiray raashin baa la siinaya marka waxa lagu qorayaa inta tiradoodu leeg tahay muskiila sonkora ama kiilo bariisa ama intaasoo galeeya subaxdii kaarkaagaad qaadanaysaa kayuuga baad gelaysaa haddaba iskuulaadkii waxbarashada xamar jadiid iskuulaadkii laga dhisay anoo caruur ah baan tabaruc waayo qofkii habeenkii tabaruca oo iskuulaadka dhismahooda ka qayb qaata subaxdii kayuuga hore ka gelaya waa lagu saxayaa waa la guulnaadinayaa subaxdii annagoo caruura halkaasaanu habeenkii iskuulkii aan wax ka dhisay baan birimo ka fariistay xamar jadiid haddaanan xasuustaydu xumayn halkaasaan ka galay iskuulka habeenkaan ku tabaruci jirnay kadib markaan iskuulkii gaaray fasalka shanaad baan jecelahay baa walaalkay garow ii soo bedelay waxaan galay dugsiga hoose dhexe garowe waxaa director noo ahaa maxamed cabdulqaadir waqtigaas waxay ahayd waqtigii dhibaatadu dhulkan kulmis ay bilaabanaysay mucaaradku bilowday iskuulkaas taariikh buu leeyahay ardaydiisii iyo macallimiintiisa waa la xirxiro ilaa Mandheera la geeyay maxaa ka xasuustaa arrinta waxaan ka xasuustaa in maamulaha iyagii la xiray waxaan ka xasuustaa dhibaatadii iyo bandowgiina la ku soo rogi jiray waxaan xasuustaa warqadihii la qaybin jiray oo markaas maxamed siyaad bare iyo waxaas iyo kalitaliska iyo waxyaalo dhibaya lagu qori jiro la daadin jiray waxaan xasuustaa in maalin dugsiga nalo ku yimid annagoo hoose dhexe ku jirna dhexaan noo ahayn dhexe fasalka shanaad baan jeclahay mise lixaad waxaa naloo yeeriyey waxaa la yidhi qof inta qofee wax qori karta waa in fartooda si laysku barbardhigo wixii la qori jiray waxaa loo yeeriyey ereyadiioo naloo maldahay reexaanta waa udgoon tahay maxay waxaasaa naloo yeeriyeyoo dadkii de forensic waa forensic test waxaan garanayaa maalintii anigoo gabadhi ag fadhidaa erey sida loo higaadiyey garaweyda waan yaraa ilka caddeeyey nimankii halkaana hortaagnaa oo askarta ahaa marka waxaan u malayaa dhar ma ay qabin military laakiin dhar cad bay ahaayeen markiiba waa layla boodo waxaa yidhi maxaad ku qosashay waxaa loo maleeyay inaan fahmay meesha wixii la maldahayay ereyadii la maldahayay inaan fahmay laakiin I was innocent waxaan maaragtay la socday ma ahayn ardaydii oo dhan maalintii ruqya caawaa lala baxayay meel aan galaan waayay marka macallinkiina la xiray ma joogto iskuulka maamulaha iyaga ha marka la xiray waan dhiganay iyo ardaydaba iyo ardayda qaarkood say idin saameysay marka argagaxun iyo cabsi waxaa ka darnayd waqtigaas walaalkay hambo oo kulmis galay habeenkuu baxayay qolkuu deganaa baan ugu tegay nu ku oynay isagaa meesha igu hayay oo ayaday baa la joogay wuxuu yidhi waxaan walaalo maxaa nooga tagaysa wuxuu yidhi daaqadda habeen walba oday waxaa jiray meesha dad waxaa jiray kacaankii u shaqeeya daacado ah oo dadka laga shakisan yahay ama dadka la leeyahay dib u socod iyo mahbar soo dhegdhegaysta wuxuu yidhi wal qurux habeen walba ii soo istaagi mayo daaqadda mikrofon oday haysto u ahaayo magaalada la wareego kacaanka daacado ah ade waa run qofku kacaanka u shaqeeyo shaqadiisa shaqaa loo diraya hamba saasuu ku tegay qofka taga marka walaalkay cabdullaahi dheeg markaas wuxuu ka yimid xamar uu ka soo wareegay
waxaan xasuustaa in maalin walba stationka booliska Garowe looga yeeri jiray oo la dhihi jiray walaalkaaba kulmis jira dadka deegaankuna baana inta badan dadka xafiisyada fadhiya saraakiisha madaxda waxay ahayn dadan deegaanka u dhalan xilli aad u adag baahid waxa ka darnayd marka qandowgii iyo kulaylka meesha aad aragteen oo kulaylku inta yahay warqadihii si kastoo la yeelo in waraaqihii la daadiyo oo sida loo diidan yahay looga soo horjeedo falalka xun dadka kama daalin waa la sii waday warqadaha awal 6 la daadin jiray 6 baana la xiray saa wali waa la daadiyay 5 galabnimo la daadiyay saa 5 baana la xiray 4 galabnimo la daadiyay saa 4 galabnimo guriya waraaqaha waxna kama qorin I was too young waxna kama qorin waxna kama daadin laakiin waa dhalinyaradii iyo waxba qaar bay ku xaman jireen hebel iyo kamida kuwa wax daadiya marka taasay horta kulmis iyo dhibaatadii halkaan nala mariyay iyo waayo aragnimadii aan kala kulannay waxaan garanaynaa inaan masquuluhu magaalada dibadda kaga yaaleen waxaan leeyahay guryaha dibadda kaga yaaleen laguma ogola inaan masquusha u soo baxdi askarba waxay ku tusaysaa magaalada inta qof ku noolay iyo askartana la dul keenay xirada ciidanka maxaa la 22aad konton afraad fadhiday inay shacabka tiro la ekaayeen ama ka badnaayeen oo Soomaali meel kasta iyo qabiil kasta oo yihiin laga keenay waan deegaankan u dhalan guri walba waxaan garanayaa daaqada habeen hooyaday naqasku ku dhigay oo qoriga maartay ay gadaashiis ku dhufteen oo yiraahdeen gal xir ya marka wax istirin surka la baxo luqunta la baxo wax yar neef qaado marka albaabkana waa taagan yihiin daaqadana waa taagan yihiin masquulahana waxa la yiri baaldiya guryaha dhigta ama baaday ku jirtaa saa wax yeelaysa magaalada Garowe dhasaas qof bixi karay masquulaha guryahan hadda hoosta laga dhisanayo iyo ma jirin isku banaanka ku taal marka sidaas ayaa meeshan soo martay maanta wixii dadkii waxa goob jooga u soo ahaa u malaynayay dad badan inay maanta ka nool yihiin xashaan wuxuu kamid ahaa dadkii ugu horeeyay oo teegay oo kamid ahaa wuxuu caan ku ahaa oo wada ka ahaa gaari la oran jiray dayacan oo ahaa gawaaridii ugu horeysay oo laga qabsaday ciidamadii Soomaaliya laga qabsaday marka nin caan ka abu ka ahaa jabhadda markii dambe mishimadu soo raacay jiray guduhu ima jiro dadka gudaha ka aawuri jireen waa ahaa miduu ima jiray Garowe marba noogu soo galay cabsida kale oo aan xasuusan noogu weyn waxay ahayd habeenkii uu maqribkii ka bacdi guriga noogu soo galay isaga intuusa soo gali ka hor baa dhowr maalmood waxa socotay hambo ciidan wataa soo galay gobolka Nugaal marka dawladda iyo kacaankii waa diyaar buu ahaa waa la socday Abdullaahi walaalkay si aan loo xirin nasiib wanaag nin firfircoon buu ahaa maqaayad la yiraahdo New York buu wuxuu ka furtay magaalada meesha barxadda ah madaxdii meesha haysatay wuxuu leeyahay fikrado cusub isboorti wax abaabul madaxdii koonfur laga keenay gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada kan booliis wuxuu dhan buu la saaxiib oo barxadaasi kofi la aqoon iyo geed meeshaas wada geeda marka wuxuu ku badbaaday awal maalin walba waa la jiidi jiray oo dadka deegaanka baa intii jaajuusiinta ahaa baa dhihi jiray waa hamba walaalkii marka saasuu ku badbaado nimankii buu maaragtay kasbaday kalsoonidooda hamba markuu habeenkan noo soo galay muddo la sii sheegay waa yimid maqrib bay ahayd waa markay ugu horeyso bumba gacmeed bumbada tan la isku qarxiyo oo kuuskuusan aan arkay meel bakhaara baanu lagu qariyo qaad loogu keenay oo la fariisay laba nin baa la socda waxay wataan qoryaha kan magacyadooda ma aqaan iyo bombooyinkaas dhinacyada bombooyinka iska dhigeen waxay diyaar u ahaayeen waxay inaan nolol lagu qaban oo annaga iyo iyaguba meeshaas aan ku gubano hamba wuxuu yiri waxa la ii soo diray inaan mission fuliyo laakiin maxaan ka dheefayaa
haddaan meesha badroolka caawa qarxiyuu yidhi garoowe haddaan wasaaradaha wixii gudoomiyaha gobolka iyo wax badanba ma dhisna haddaan meelahaas qarxiyo maxaan ka dheefayaa in cabdullaahi la jiido oo la dilo ma ogi ama idinka la idin silciyo maahane waxay soo kordhinaysa male dhulalka kale midhaa sahankoodii iyo waxoodii laakiin raggii meel buu soo fariisiyey 40 nin buu watay labadaasaa la socday waan ka xumay nimankii la socday inaan magacyadooda aqoon waa garanaya walaalkay qoryihii armuu laba uga tagay ay wateen iyagiina waa la jiscimay marka ilaahay mahadii makhaayad aad u socoto makhaayad New York lacag badan maaragtay buu walaalkay maaragtay makhaayadda naga soo gali jirtay 40,000 oo shilin Soomaaliya markaa joogtay dusi ku bixi حتى lacagtaas inay kumis kaga qayb qaadanay marka qof weyn iyo qof yar ba jabhad yar anna jabhad yar baan ahaa iyo jabhad weyn dugsiga marka waxaan kaga baxay dugsiga gambool marka lama magacaas looma bixin laakiin waxaan ahayn ardaydii tirada yarayd marka la sacaanood ardayda ka timaada gobolka Sool halkaan iimaan jireen waxa ahaa dugsi la seexdo anigu waxaan ka mid ahaa gabdhihii tirada yaraa oo gala waxaan u maleeyaa in laba lood iga horeysay loodkii saddexaad marka waxaa jiray form 2 form 3 form 2 form 1 form 1 markaan galay laba kooxood oo kale form 3 iyo form 2 baa iga horeeyay markaan ka baxay waxaan ahaa gabadha kaliya markii 3 iyo 4 waxaan ku bilownay maaqaan intii kale mid guursata mid ka tagta in ana soo haray kaligay baa form 4 gobolka Nugaal iyo Sool kaligay baa ka baxay sidaasan xamar ku tagay shaqo qaran waa aaday waxaanu ahayn kooxdii ugu horreysay ciidamo laga dhigo qirinqiir baan loo bixin maxaa idin baxshay qirinqiir marka Nugaal baa la keenay arday walba meeshii marka hore uu ka soo baxay baa inta badan lagu celiyay inuu shaqo qaran marka meesha gudoomiyaha gobolka meeshaasaan fadhinay nin sarkaal oo goboladaas Boorama iyo dhulka ka yimid madax noo ahaa waxay ahayd inaan tiro koobno dadka laakiin anagu dad dhalinyaro baahayn oo xogta maana wadahayn waxay ahayd inaan si loo qoro dhalinyarada gaaray fiirsanayeen ragga si ciidamo looga dhigo marka maalintaas oo dhan dadka ayaanu qori jirnay si loo qafaalo